السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحرن channel كنا Somali Universe كسو دواد مركل اليوم برنامج كيني ياريمها بالشدة أسبوعا برنامج كيني وحان كسو قادن دونا ننقرعي حاس كيسا كدمنا الميي طلو محاسوه balse intaan ugu galin kor barnaamijkeena hadii midaan ay tahay boqoshadaada kugu horeysay channelka fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto aadna ku bato batanka notification-ka si ay ku soo gaaraan videodii ugu dambeeyay aan soo upload gareyno mahadsanid asxaabteena sharafta leh ee ku xiran channelkan Somali Universe waxaan ka codsanayaa inaad booqataan channelka walaalkiin I am Jamal Official waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan fiidiyoyada aad u xiiso badan oo ku xiiso geliya waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhahdo sidoo kalena aad rukumato batanka notification-ka si ay ku soo gaaraan fiidiyodii ugu dambeeyay oo soo upload gareeyo waa mahadsantiin asxaabay hore aan u galno barnaamijkeena nin ayaa waxa uu garaacay xaaskiisa markuu garaacay kadib ayaa waxay soo aadisay wajigeeda iyada oo ooynaysa waxayna dhahday waan baxayaa si aan kaaga soo dacwoodo markaas ayuu u jawaabay oo wuxuu dhahay yaa ku dhahay wuu ku fasaxayaa inaad guriga ka baxdo waxay dhahday ma waxaad moodaa hadii aad iga xirto albaabada iyo daaqadaha inaan ka dacwoon karin asagoo la yaaban ayuu yiri maxaad sameynaysaa marka waxay dhahday waan wici doonaa markaas ayuu yiri taleefanada dhan aniga ayaa haya waxaad doonto sameey waxay aaday suuliga markii ay gashay ayuu ku fikiray inay ka boodi doonto daaqada wuxuu aaday banaanka wuxuuna istaagay daaqada dhankeeda ma arkin wax isku day ah oo ay gabadhu sameysay waxa uu soo galay gudaha wuxuuna istaagay albaabka dhinaciisa la yaab gabadhii ayaa ka soo baxday iyada oo ka muuqato weysqaad aad cajiib u ah kadib ayay dhahday kaliya waxaan kaaga dacwoonayaa midkii aan ku dhaartay magaciisa uma baahni taleefanadaada iyo daaqadaha oo aad ii diiday albaabadiisuna ma xirmaan kadib ayuu ka tagay wuxuu fariistay salootada isaga oo aamusan oo fakaraya gabadhii ayaa xiratay salaada waxayna ku dheeraatay sujuuda isagoo ilaalinaya markay salaada dhameysay ayaa waxay kor u taagtay gacmaheeda wuuna u soo dhawaaday wuxuu qabtay gacmaheeda markaas ayuu yiri ma kugu filnamaya habaarka aad ugu habartay sujuuda markaas ayay fiirisay fiirin daciif ah oo naxariis ku jirto ilintuna ay ka soo daadanayso indhaheeda markaas ayay tiri ma u jeedaa waxaad igu sameysay markaas uu yiri والله حناق ayaa iga keenay si uu la kacahan ma aan ku yeelin markaas ayay tiri aniga kuma habaarin mana ku habaarayo habaarkayga waxa uu ahaa mid aan ku habaarayo shaydaanka ma ihi gabar nacas ah oo iska habaaraysa seegeeda isheedana ay ku dogsanayso wuu ilmeeyay ninkii wuxuuna dhunkaday gacmaheeda markaas ayuu yiri wallahi baan ku dhaartay maanta kadib inaan kugu sameyn doonin wax xumaan ah wallahi waxaad tahay xaas wanaagsan oo sharaf badan يا الله ninkan wuxuu garaacay xaaskiisa balse waxay ku kasbatay xikmadeeda ibra qaadashada qisadan ku jirta ayaa ah in hadii aad aragto qof ku careysan aadan ka horgeyn caro balse aad tukato Allahna aad u bariso insha Allah waxaad arki doontaa mucjizooyin waaweyn wallahi qisadan aad ay ii saameysay shakhsiyan waana la ilmiyay qof walba waxaan ka rajeynayaa inuu qisadan gaarsiiyo hooyo walba wiil walba iyo shakhsi kasta si ay u ogaadaan macnaha uu ximaarsan yahay hooyo Allah ku naxariisto hooyo